بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مدحوينها مروضة مدحوينها كلياشة لمان حفلة دندتك السويمي وان سلام يا مركوري مركا حيقلن marka xigeenin saluug badan baan hado waxaan yar sarinayaa ninkii aan ka hadlay marka hore hadalka furay ee 3 daqiiqo ninkii ba hadlo ayaan ka yar sarrisanahay waan sheegayaa madaxweynaha inaan la hadlo hortiisa imaado oon baan u qabin marwada madaxweynaha iyo xukuumadda maadaama aragaygu isku yar yahay marka kolka wax yar fiiriyo hadalka feenkiisii iyo salaanta oo dadka wada gaarsiin lahaa ku yar iyo ku weyn ayaa waxyaalo badan ayaa de kolka feenkii baa iga maqnaanaya madaxweynaha maalintiisa ku haday habeenkiisu ka dambeysay kelmadaan waxay ahayd waxaanu nahay dad China dawladuna waa insigiyo jikuraas baarkaan annagu dawladdu de waanu arkaynaa inay dawlad tahay iyo madaxweynaha iyo calanka iyo dadkan iyo quruxda waanu arkaynaa laakiin nasiib darro annagu waxaanu nahay dad magaca lahorna ma arkaysa dawladdu markaa waxaan u jeeday waxaanu nahay dad badan oo fara badan oo ilaa badda cagaha marka saa loo saaray iyo ilaa halka inoo dhaxaysa maxay ahayd ugu shishaysa waddankeena dhinacan kore dad intaa buuxiyaanu nahay haddaan nusinahay waa nala arki lahaa taa kelmaddaasuun baan ku daynayaa waxaan se u yar dhaafayaa waxaad moodaa iminka walayararkada waayahan waxaan lahayn jinow baalka ka qaad jinow baalka naga qaad baan lahaynoo jinkii baalka wuu naga qaad horta madaxweyne wuuna arkay madaxdii kalena dee kaan bay noola midtoo wayna aragtay halkan degmada Faraweyne aanu Faraweyne ku dhashay ilaa intaasina waan ku noolaa ilaa maalintii diyo oo aantaa Faraweyne laga ooyayay waan ku dhashay dad waan arkay dhahdii waanu ka soo saaray laakiin nin ka soo saara Axmed Maxamed Maxamuud baa ka koowa waxa weeyaan mahadu isagu iska leeyahay halka waa laga qoday riig 4 baa laga qoday Faraweyne waa laga qoday mid walba halkii laga gatay wadama ka hel waa la keenay baalkii maxay ahayd mashiinkii maalintii biyaha laga soo saaray nin wasiiraa ka gooyay de Soomaali baa Axmed way noo sinaayeen laakiin Axmed inuu noo damqaday oo biyihii ka soo saaray aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa annagu ma aha Soomaali badan ilaa halka u baalaysa bari iyo ilaa halka u baalaysa galbeed intaa wuu wada maray geedgeed buu maray Axmed Siraayo dhulka wuu yaqaano marka horeba halka wadamo ka hel waxay ku subsan tahay maalintii la yidhi waddanka ka baxay xayro madaniye ay heshiiyeen afayni ee la yidhi ka baxa waddanka halkaynu dhaawaca ku ursanay isu keenay waa wadamo ka helbaahay markaa waxa weeyaan degmada Faraweyne waa degmo qadiimi ah laakiin dawladda kama helin wixii ay xaq ugu lahayd gaar ahaan dawladihii hore iyaga kaba hadli maayo ninkii wax ku qabta ama dee kaa damqaraya unbay u baahan tahay inaad la hadasho haddii aad wax u baahan tahay Axmed Siraayo baan la hadlaya maanta mudane madaxweyne sidaan u mahad sheeganayna iyo sidaan u soo ururnay waxaa weeyaan weynaynaya oo aan u sii weynaynayna waxqabashada aad noo qabtay waa tii noogu horraysay oo dawlad noo qabato noo naxdaad kow tahay laakiin malihii way noo dhammaatay ama waxbaa naloo qabtay malihide gaajadii wayna haysaa aad way yar dibacday
markaan ceelkan ka hadlaayo baahida weyn loo qabay dad badan oo Soomaali u qabay halkan automation degmada Farweyn la yiraahdo waxaan mar waa 36 tuulo marka sidaa loo eego in kastoo ay joogaan madaxdii degmadu waa meelaha sar mareynaya Farweyn lafteeda waa laga qoday laakiin balbiye badna wadama ka hay lafteeda waa la qoday madaxweynuhu wuu qoday wuu ku dadaalay maalintii uu yimid ee uu riiga ku taagay ee uu furay waan ogaa anigu goor cawaysina oo qolada liiga joogta marka xooluhu ka lumaan aanay doonan habeena waa mahadsan yahay maanta waan ognahay imaatinkan wadooyinka qalqaloocan uu soo maray wadooyinka dhaadheer uu soo maray intuu soo socday waa wax ilaahay lagu mahadiyo madaxweyne intaasi isu soo kaa dhiba wax lagu mahadiyo orda madaxweyne waxa weeyaan waa waajib aad leedahay intaan kuga ammaanaya annana waajib aanu leenahay jirto markii hore annagaa meesha ku keenay maantana diyaar baan kuna markaan intaa kaga gudbo kolay dabadaada iga wadaayo waddankan agteeda lafteeda wuxuu leeyahay hadalka soo gaabi waa la yidhaahdo meeshaan tagaba waa la yidhaha hadalka soo gaabi anna waa kelmad igu adag laakiin waan iska ogolaaday madaxweyne waa ku ducaynaynaa adiga iyo marwada iyo kula ducaynaa inanta samsur la yidhaha abaal weyn bay iyadan laga leedahoo waa horbaxanyadii iyaduna soo meesha soo aragtayoo waxa weeyaan baashan la yidhaahdo malabka baashan baa dhaha shimbir yaroo bigbigtaa soo aragto ku noqotay oo tidhahdo warba halka malbaa ku yaalla kaala ka qoda shimbirtii bay noo noqotay kolkaa inantaasina waa shimbir malab ha noolaato aad baan u salaamayaa madaxweynaha marwada aad baan u salaamayaa ninaanu saaxiib naadoo isna xirsi la yidhaahdo halkanaan goor weytana ku arkayay halkanna aad marka meelaha uga hadlaayo u jecel in maxay dadka wax loo qabto isna aad baan u salaamayaa madaxda oo dhan waa wada salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu